السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaan ka baranaynaa cashar ku saabsan sidee macluumaadkaada loo qarsan karaa kugu jira local partition D ama partitionka safeka ka viruska. sidee macluumaadka kugu jira adoo qarsan kartaa dadka kale ee imaanaya computerkaaga markay furan sidaysan u arag ama hiding looga dhigo loo qariyaa. maanta aan baranaynaa sida local partition hiding looga dhigo loo qariyo si aan macluumaadkaada qof kale uusan u helin. aan soo soconnaa si loo hiding garaynaya. how to hide your local partition D for your computer Windows 10. look for this one. waxaan leenahay two partition, laba partition oo midka hore uu yahay local disk C iyo xaajir. waxaan rabnaa macluumaad wuxuu ku jiraa marka la fiiriyo xaajir iyo macluumaadka ku jiraa macluumaadka aniga leeyahay intii ugu jiraa macluumaadkaan rabaa inaan qariyo. marka macluumaadkaan rabaa inaan dadka ka qariyo. macluumaadkan sidee u qarsan karaa marka partitionkan ugu jiro partition oo haajir hadda ku qoran tahay inaan qariyaan rabaa ama local partitionka sidiisan qof kale iga arag. waxaan maraynaa waddadan aan soo soconno. waa inoo muhiim haddii aad baranaysaan qofka bartow siad computerkaad macluumaadka dadka kula wadaagi lahaad oo qarsan lahayd. waxaan tagayaa CMD ayaan leeyahay waa common promptiga CMD common prompt waxaan leeyahay aan kusoo dhifsanayaa. waxaan leeyahay disk part iyo halkaas ku qoray way ka soo diiday. waxyar waa sugaynaa soo muujinayaa xagga waxaan kusoo qoran disk part. hadda muxuu na soo diray disk partiga xaggan kusoo qoran inta nagu soo muujiyo. waxaan leenahay list folio foliomyada uu leeyahay isoo bandhig isoo tix. wuxuu ii keenay dhowr folium oo ku jira computer gudihiisa. uma baahnin innaga waxaan uga baahannahay haajir folium u baahannahay foliumkaasaan uga baahannahay inaan isticmaalo. waxaan leeyahay foliumkan marka wuxuu leeyahay numberkee waa number 3 uu taagaya. waxaa leeyahay marka select gareey horta folium kee waa folium 3 ilaa folium 3 waa haajir. wuxuu leeyahay folium 3 selected folium not a folium the selected folium waa la select gareey. waxaan leeyahay marka remove. halkaan ka arki doonaa wuu noo soo muujinaa remove. asaga dhan naga tuur ma u baahnino. waa disk part successful remove the drive lateral amount to the point. marka driverkaas waa la tuuray leeyahay driver amount point waa la tuuray. waxaan aadaynaa iska baxayna marka uma baahnin ka baxayna. waxaan fiirinaynaa marka haajir inuu meesha nagu jiro in kaa haajir meeshuu ka baxa waxaa noo soo haray local C. hadda saan hiding ku yahay qofkii arkaa wuxuu is leeyahay minta wax ku qoran volumeka uu leeyahay 264 GB kaliya ayaa meesha ku jirto oo sidaas hadda qofka arkaya in computerka 260 GB ka badan uusan dhaafsanayn ayuu qofka u fahmaya oo computerkan kaliya uu yahay partitionka kooban yahay hadduu positionka soo mara aan isla fiirinayna position kala hadduusan qofka halkaas eegin oo computerkan wax ka kooban yahay markaas halkaas ku ogaan karo. hadda waxaan isla fiirinaynaa computerkan partitionka ka kooban yahay inaan isla ogaano meesha laga ogaan karo. disk managerka waan imaanaynaa.
halkaan ku ogaan karaa in partition jiro qofka partition yiraahdo hajir inuu jiro qofka halkaan ku ogaan karaa inta GB yahayna oo online oo shaqeynayso oo accessible wixii banaanka ka imaada intay soo galaan wixii drive ka saxdana waa kana asaga waa 465 ama 500 GB drive kan u yahay kana maxaa waaye wixii dhaafsan waxa kan ku qoranta CD ROM iyo wixii xagga soo jiran wixii flash soo gala ama hard disk external soo gala soo gala marka partition inuu wada dhan yahay uu yahay ka badan yahay 200 wax cadeyna waa kan laga arki karo drive ka samaysan qarsoon waa kana maxaa jira hadda soo muujinayna hadda noo soo muujinayna waxaan asla fiirino banaanka noo yaalo dadka ma arkayaan magac kaliya arki karaan sidee loo soo muujiyaa markaa awal waan hiding garayno waan qarinay oo remove garayno waa ka tuurnay meesha aan soo muujino markaas la aragno sidee loo soo muujinaa waxaan tagaynaa CMD oo componentiga CMD markaan helno oo ku dhufanaynaa waxaan qoraynaa iski part inta markaan raada waxaan lahay list folio marka list folio isoo tix volume-yada waa kana marka waxaan leenahay select waxaa inta noo yaalo volume 3 noo jiraha noo select volume aan leenahay marka volume kala soo magacaabo position-ku kaga jiro halkaas inaan sheegno marka volume-ka oo volume 0 volume 1 volume 2 volume 3 noo yahan cadaynaynaa marka ila noo sheego computerka waa la select garay uu leeyahay waxaan leenahay marka assign oo ah nasoo muuji markaan iraano intuu kasoo bandhigaya geeska waa arki doonaa nasoo muujiyey iska part assigned isla aadayna marka waxaad na soo baxay local partition ka hajar waa kan oo nasoo muuqdo marka awalna waa iska qarinay waa remove garaynay waa qarinay sidaan macluumaadka naga cid kale aysan u helin ayaan u qarinay وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما انت راح كان نوعك هذا 10 كيني